ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 130,000 oo ruuxna waa ay ku barakaceen dagaalka ka dhex aloosan labada dal ee dariska ah ee Thailand iyo Cambodia. haddaba maxaa la isku hayaa? waa maxay sooyaalka uu leeyahay dagaalkan soo jireenka ah? labada dhinac ee dagaalamaya waxay isku adeegsadeen hubka culus, inkastoo xitaa ay Thailand adeegsatay diyaaradaha dagaal ee F-16 kuwaasoo duqeymo ka geysteen saldhigyo military oo dhaca Cambodia. waxayna Cambodia iyaduna adeegsanaysaa hubkeeda ugu culus sida gantaalada Grad MLRS oo ay Sovietku soo saareen. kadib in ka badan 10 sano, labada dhinac waxaa ka dhex qarxay dagaalkii ugu qaraara. ra'iisul wasaaraha Cambodia Han Manet wuxuu sheegay inay Thailand ka baxday xabad joojin uu soo jeediyay ra'iisul wasaaraha Malaysia ahna gudoomiyaha urur goboleedka ASEAN oo ay ku midaysan yihiin 10 dal oo ay Thailand iyo Cambodia ka mid yihiin. Thailand waxay xirtay xadkeeda waxayna sheegtay inay difaacayso madaxbannaanida iyo midnimada dalkeeda, ayadoona xustay inay raaci doonto shuruucda caalamiga ah. labada dalba wuxuu midba midka kale ku eedeynayaa cidda bilowday dagaalka. labada dhinacna waxaa caalamka uga imaanaya baaq nabadeed. พัฒนาไปสู่สงครามได้ซึ่งขณะนี้ยังถือว่าเป็นการปะทะกันนะครับโดยใช้อาวุธหนักที่รุนแรงกลายตรองនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងច្បាស់ថាថៃជាអ្នកបង្កហេតុ shiinaha oo xulafo la ah Cambodia wuxuu sheegay in arrinkan uu salka ku hayo saameynta iyo cawaaqibta ay ka tageen gumeystaha reer galbeedka ee dhulkan mar xukumi jiray. wuxuuna labada dhinac ugu baaqay in ay khilaafka uu galbeedku xuriyay ay si degan u xaliyaan. xuduudda dhuleed ee labada dal isku hayaan waa ilaa 800 kilomitir. wuxuuna khilaafkan xuduudeed asalkiisu u laabanayaa heshiisyo la saxeexay oo uu Faransiisku gadaal ka taagnaa, waana kuwa si weyn ugu salaysan macbadyo labada dhinac muhiim u ah sida Preah Vihear iyo Prasa Thammuwanton. qarnigii 9aad ilaa 15aad Cambodia waxay ahayd xudunta boqortooyadii Khmer oo ahayd mid awood badan oo raadkeedu weli muuqdo. Khmer waxay mar ka talin jirtay dhul ballaaran oo koobsanayay qaybo ka mid ah dhulal maanta ka tirsan Cambodia, Thailand, Laos iyo koonfurta Vietnam. qarnigii 14aad ilaa 18aad khilaaf xooggan ayaa ka dhaxeeyay Khmer iyo boqortooyadii Taiga oo markaasi loo yaqaanay Ayutthaya. boqortooyadii Ayutthaya oo 400 oo sano jirtay waxay dhowr jeer qabsatay caasimadii Khmer, waxayna u arkaysay Cambodia inay tahay dal hoostaga. 1863 Cambodia waxay noqotay maxmiyad oo Faransiisku maamulo. Cambodia iyada ayaa u yeeratay Faransiiska si uu uga difaaco weeraradii uga imaanayay Vietnam iyo Siam ama Thailand. Faransiisku wuxuu la wareegay arrimaha dibadda, difaaca iyo dhaqaalaha ee Cambodia, waxayna tani hoos u dhigtay awooddii boqortooyadii Cambodia ee faca weyneed ee Khmer. inta u dhaxaysay 1904 ilaa 1907 waxaa la saxeexay heshiisyo xuduudeed oo muhiim ah oo u dhaxeeyay boqortooyadii Siam ama Thailand iyo Faransiiska oo markaas xukumayay Cambodia, Laos iyo Vietnam. heshiisyadan waxay saldhig u noqdeen muranada xuduudeed ee maanta ka dhex jira Cambodia iyo Thailand, gaar ahaan muranka ku qotoma macbadka Preah Vihear. 1904 Faransiisku wuxuu sameeyay qariirad rasmi ah oo la yiraahdo Onyx Map kaasoo muujinaysay in macbadka Preah Vihear uu ku yaalo gudaha Cambodia. Siam oo markaas Thailand loogu yeeri jirayna si cad uguma hor imaan arrinkan. sidoo kale 1907 waxaa dhacay heshiis oo ay Siam ama Thailand ay Faransiisku ku siisay gobollo badan, waana dhulal ay markii hore Cambodia ka haysatay. Faransiisku wuxuu ku adkaystay in dhammaan xuduudaha cusub lagu saleeyo qariiradaha uu isagu diyaariyay. Preah Vihear waxaa lagu daray dhulka Cambodia, halka Siam ama Thailand ay mar dambe sheegtay inaysan ogoleen qariiradaha qaarkood. 9 November 1953 ayay Cambodia si rasmi ah uga xorowday Faransiiska kadib cadaadis siyaasadeed uu sameeyay boqor Norodom Sihanouk. Thailand oo markaas la oran jiray Siam weligeed si toos ah looma gumaysan, waxayna Thailand si xeeladaysan ula shaqayn jirtay reer Yurub si ay u badbaado. waxayna la shaqayntaasi ku lumisay dhulal badan, waxaana Thailand lagu tilmaamaa dalka kaliya ee koonfur bari Aasiya dhaca ee weligii si toos ah loo gumaysan. Mangkhala Yothaแต่งกายชุดเต็มยศรักษาพระองค์ของกรมทหารราช kadib markuu meesha ka baxay Faransiiska, Thailand iyo Cambodia waxay si weyn isugu khilaafeen xadka dhuleed ee u dhaxeeya sida Preah Vihear oo ah macbad qadiimi ah oo la dhisay qarnigii 11aad, kaasoo ku yaala buuraha Dangrek ee u dhaxeeya Cambodia iyo Thailand. 1962
Cambodia waxay dacwad u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ. haddaba iyadoo maxkamadda cuskanaysa qariirada uu Faransiisku sameeyay waxay go'aamisay in macbadka uu ku yaalo gudaha Cambodia, laakiin Thailand waxay ku sii adkaysatay inuu macbadku dhaco aagga dhuleed ee xaq u leedahay. sanado kadibna waxaa bilowday dagaallo iyo xasilooni daro. 1975 waxaa talada Cambodia la wareegay dhaqdhaqaaqii shuuciga ee Khmer Rouge ama Khmer Cas, kaasoo la talinayay ilaa 1979. wuxuuna ahaa dhaqdhaqaaq xag jira oo u janjeeray Shiinaha. haddaba qolada shuuciga ee Cambodia qabsatay waxay si weyn ugu mashquuleen dhanka xadka Vietnam halkii ay diiradda saari lahaayeen Thailand. dhaqdhaqaaqii Khmer Rouge wuxuu si joogto ah weeraro uga fulin jiray xadka Vietnam, asigoona dhaqdhaqaaqaasi halkaasi ku dilay kumanaan Vietnamese ah. haddaba tani waxay kaliftay inay Vietnam xoog ku qabsato Cambodia, meeshana ka saarto Khmer Rouge. Thailand oo kolkii hore difaac kaga jirtay saameynta shuuciyadda waxay door biday inay dhanka xadkeeda dib ugu abaabusho Khmer Rouge, waxayna istusisay inuu dhaqdhaqaaqan dhaamo Vietnam, isla markaana ay habboon tahay inay ayagu Cambodia xukumaan intii ay Vietnam xukumi lahayd. tanina waxay sababtay inay fooda isdaraan Thailand iyo Vietnam. dhaqdhaqaaqa Khmer Rouge wuxuu dagaal ka waday dhanka kaymaha iyo xadka u dhaxeeya Cambodia iyo Thailand. ciidamada Khmer Rouge-na ilaa 90-meeyadii ayay isku dayayeen sidii ay xukunka dib ugu soo laaban lahaayeen. dhanka kalena Vietnam waxay Cambodia ku sugneed muddo 10 sano ah, waxaana la dhisay dawlad cusub oo ay hogaaminayeen siyaasiyiin Cambodian ah oo si weyn uga soo horjeedeen Khmer Rouge, kuwaasoona taageero ka helayay Vietnam. dalka Cambodia wuxuu in muddo ah cagaha kula jiray dagaal proxy ah oo u dhaxeeyay Vietnam oo garab taagnaa Midowgii Soviet iyo Khmer Rouge oo ay taageerayeen Shiinaha iyo reer galbeedka oo dana istiraatiiji ah. intii ay Cambodia dhex jibaaxaysay colaadaha, xadka ay la wadaagto Thailand wuxuu ahaa mid hubka laga siiyo Khmer Rouge, isla markaana ay tuban yihiin maleeshiyaad iyo dad qaxooti ah. 2008 Cambodia waxay macbadka Preah ku dartay liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. arrinkaana Thailand si weyn ayay uga hortimid, waxayna sheegtay in go'aankan uu xadgudub ku yahay madaxbannaanideeda. 2008 ilaa 2011 waxaa dhanka xadka ee labadan dal ka dhacay dagaallo kooban oo ay ku dhinteen askar iyo dad rayid ah. xiisadda labadan dalna waxay sidoo kale cirkaas ku shareertay 2013 kadib markii maxkamadda ICJ ay mar kale sheegtay in Cambodia ay leedahay dhulka ku xeeran macbadka Preah. laga soo bilaabo 2023 waxaa gudaha Thailand ku xoogaysanayay doodda ku salaysan soo celinta macbadyada Cambodia loo xukumay, waxayna dad badan oo u dhashay Thailand u kaambin gareeyeen, isla markaana muujiyeen in macaabidda Cambodia la siiyay ay yihiin goobo taariikhi ah oo ay dhaxal u leeyihiin. dhanka kalena Cambodia waxay iyaduna si weyn isugu hawshay ilaalinta taariikhda ay ka tagtay boqortooyadii Khmer, iyadoona dhismooyin cusub ka hirgelisay aagga xadka lagu muransan yahay. guuxa Thailand ka dhex jira wuxuu kowdii bishan galaaftay ra'iisul wasaarihii dalkan ee Paetongtarn Tan Shinawatra, taasoo samaysay ficil ay dadka Thailand si weyn uga gadudeen. waxay si qarsoodi ah ay taleefan kula hadashay Hun Sen oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee Cambodia oo muddo dheer majaraha u hayay siyaasadda Cambodia. waxyaabaha lagu qabsaday waxaa ka mid ah sida inay ra'iisul wasaarihii hore ee Cambodia ula hadashay si dabacsan oo siyaasadda iyo danaha qaranka ka turjumeen, iyo inay saraakiisha qaar ay Thailand ku sheegtay kuwa iska xanaaqsan oo amniga u roonayn. Thailand iyo Cambodia waa laba dal oo daris ah kuna yaala koonfur bari Aasiya, balse waa kuwa si weyn ugu kala duwan dhinacyo badan. Thailand waa dal weyn oo dhaqaale ahaan horumarsan marka la barbar dhigo Cambodia oo weli ka soo kabanaysa dhaawacyadii siyaasadeed iyo dagaaladii sokeeye ee qarnigii 20aad. Thailand 3 jibaar ayay ka weyn tahay Cambodia, waxaana Thailand ku nool dad ka badan 70 milyan halka Cambodia ay ku nool yihiin ku dhawaad 17 milyan. dhaqaalaha Thailand waa mid heer dhexe ah oo koraya, wuxuuna dalkan GDP-giisu dhaafayaa $500 bilyan, halka Cambodia ay weli tahay dal dakhligiisu hooseeyo, wuxuuna wax soo saarka guud ee Cambodia ama GDP-giisu uu gaarayaa $30 bilyan oo kaliya. Thailand waa boqortooyo dastuuri ah oo leh nidaam doorasho, waxaana si weyn xukunka dalkan saameyn ugu leh militariga. nidaamka xukunka Cambodia waa mid wajiyo badan, waa boqortooyo dastuuri ah, baarlamaaniya, jamhuuriya, hal xisbina uu taliyo. Thailand waxay leedahay awood militari oo si weyn uga badan Cambodia, waana dal leh diyaarado casri ah, maraakiib dagaal iyo miisaaniyad militari oo aad uga sareysa tan Cambodia. halka Cambodia ciidamadeedu tiro ahaan kooban yihiin,
agabkooduna uu yahay mid muddo soo jiray oo aan si weyn u horumarsanayn.